wuxuu hadalkiisa ka bilaabaa waxaa raba inaa ku guursado gabar qurux badan aa tahay misguursanaan markaasaa marka shukaansiga dheeraa ma jira meesha iyadoo la fadhiya wuxuu leeyahay haye intee ku noolaanaynaa imeeqaan ma isku dhalaynaa micnaha waa dad caddaan ah waa marka dadkan ka sheekeenaya intee la degaa maxaa la dhahayay intee fasax loo aadaa wixii meesha kuwada dhamaysanaya iyadoo hal daqiiqa wax saas camal sheekada socoto ee isku khilaafayaan arrin yar markaase meesha wuxuu leeyahay ani arrintan ma shaqeynayso iyadana waxay leedahay ani arrintan haddaa saan loo sameyn ma shaqeynayso waa mahadsanta waa isku dayno le waa kala tagayaan marka mawduucaasa wuxuu ugu soo dhaliyey labada qof markay isguursanayso waxyaabaha hadda dadka qurbaha jooga ay ku wareersan yihiin arrin waxay ku noqotay oo tiih oo kale qofkii ma oga waa khilaafku uu badan yahay of course waa noloshay ka mid tahay khilaafkana qof ma dhici karto inay dad badan ba iskugu imaan hal waxan oo laisku raaco isla arrintaas oo kale oo ninkaas uu sameeyaa waxaa lagu sheegaa nin Soomaaliyeed oo qurbaha isagana jooga waxaa lagu sheegaa wuxuu go'aan ku gaaray inuusan abad gabar shukaansan maxaa dhacaa la dhahay aniga ma rabi waxyaabahaas shukaansiga xilliga dhacdhaca inaa isku dheeraanana ma warooba gabar maxaa samaynaysaa gabar u tagaa u dhahay gabar aan is dhaho waa gabar oo ku qancisay guurkeyga un bandhigana gabadha laakiin miska dhaha waa guuran kaa rabaa laakiin wuu soo baaraa wuu soo ogaanaa diinteeda arrimaheeda inuu soo ogaanaa kadib oo markuu wadada ku arka meel uu ku arko meel iskugu imaado uu leeyahay walaali waxaa rabaa inaan ku guursado marka ninkii odagaa dad mar wuxuu la kulmaa maxaa la dhahayay in gabadhii dhaho naga tagnin waan laata waa guursanaa maxaa lahaa midda kale waxay leedahay nin waalan waa bah ninka nagood meeshana way ka cararaysaa maalin maalmaha ka mid oo gabar wuxuu ku dhahay waxaan rabaa walaal inaan ku guursado waxay dhahday walaalo hadal meeshaas lagama bilaabee ma fiicnaan lahayn oo ilas barto oo aniga waxaas mari waa kasoo horjeedaa aniga hebelaa le dhahaa waa kaas waxaa rabaa inaan ku guursado waxay dhahday gabar caqli badan ahayd bal fursaddiisii dhahda aan kasoo fikiro aan iskasoo ogaado bal fursaddiisii way baxday marka isku magaalaa la degan yahay walaalkeeda u tagtay dhahday walaalo nin hebel magacaas dhaha ma ka siisaa oo dadka gabdhaha saas dhaho haa waa ka saawdha ninkaas saaxiibkeen waaye go-aan wuxuu ku gaaro naa guursado isagoona shukaansan oo halkaa su-aal weydiiy waxaa raba inaan ku guursado mis guursanayna ninka seeba ninka waa nin shaqaysto oo fiican oo ahludiin oo dad waa la kasaa nin aada u fiican caafimaad qaba waaye gabadhii sida ku guursada adiga marka